بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى. إخوة الأعزاء، إن شاء الله waxaan maanta halkan ka oran doonaa kelimad ama muxaadaro yar oo kooban oo ku saabsan al-ghuluw fi diin, ku xadgudubka lagu xadgudbo diinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala. sideedaba xadgudubku waa wax dhib badan, wax walbo lagu xadgudbaana dhib baa ka yimaada. حتى waxa mubaaxa ah ee Ilaahay uu baneeyay subhanahu wa ta'ala ma aragtaa loo baahan yahay, insaanku u baahan yahay oo jirkiisu u baahan yahay oo noloshiisu u baahan tahay, ayaa hadii lagu xadgudbo oo xadkeeda laga saaro dhibaato ay ka imaanaysaa. saadarteed ma aha in diinka Ilaahay marka si gaar ah in loogu xadgudbo ma ahaba. xadgudubka diintu waa dhib badanta, waxayna qofka u keenaysaa خاتم حمو. ولأجل هذا إلهي سبحانه وتعالى مركا غلوه وكهدليه قرآن كيسوحي كيرا الله سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أهل الكتاب وحوي دينك إلهي يلو حد قدبين ويان لا أراني الإلهي وحن حقهين. marka waxa weey diinka Ilaahay in lagu xadgudbo waa musiibo weey. ifsaadu diin baana ka dhalanaya qofka diintiisu inay budho oo uu noqdo qof aan diin lahayn. marka waa in la is ilaaliyaa weey. al-ghuluwi maxaa la yiraahdaa horta sidiisaba? al-ghuluwi waxa weeye al-mubaalaqatu fi shay oo lagu xadgudbo weey, shay oo lagu xadgudbo weey oo xadiisa la dhaafiyo, wa tashdiid fihi oo markaasna la isku adkeeyo. shay in lagu xadgudbo oo la isku adkeeyo bitajaawuz al-hadd, xadka iyadoo la gudbayo. marka ma banaana in wax walbaba loo fiiriyo, loo baahan yahay waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka yiri rasuulkiisa عليه الصلاة والسلام وka ishaaray oo markaasaas ay halkaas diintii oo baraxla ay ka timaado ku dhaqankeeda. laakiin qofku inuu yiraahdo aniga ayaa diinkii waxa weeye doonaya inaan si fiican ugu dhaqmo sida Nabi Maxamed ugu dhaqmi jiray si ka fiican, hadii waxaad noqonaysaa mubtadac ama waxaad noqonaysaa mid oo mubaalaqa la yimaada oo xad ka baxa oo markaas diinka Ilaahay ku fogaada. rasuulka عليه الصلاة والسلام حديث wuxuu ku yiri: ad-diin yusr, diinku waa fudud yahay. ad-diin yusr lan yushad ad-diin ahad, qofna diinka iskuma adkeeyo illa ghalabatu, waxa way ghalib bay diintu ka noqotaa. waxa in badan muuqata isku adkeynta diinka oo ma aragta aan xaq ahayn inay aad u farbadatay. sida darteed waxa laga maarmaan ah in laga hadlo oo la tanbiihiyo oo dadka looga digo in diinka Ilaahay ay tahay diin fudud oo yasiran oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala rahmad uu ku soo dajiyay. ولأجل هذا waxa loo baahan yahay inaan dib u milicsano, fiirino maxay nusuusta ka tiri diinta Ilaahay oo la isku adkeeyo. rasuulka عليه الصلاة والسلام xadiis wuxuu ku yiri: iyaakum wal-ghuluw, iyaakum wal-ghuluw. waxa idin kala digaya idinka iyo ghuluwiga waxa weeye xadgudubka. al-ghuluw fi ad-diin, iyaakum al-ghuluw fi ad-diin.
يا دين كلا دقة فإنما أهلك من كان قبلكم دتك إذن كهرية وحي كهلاك سمين وحوية الغلو في الدين دينته الله سكو عدد كايو أما اللي واحد قدبه أما واحد شرعي وبنانين أو للي ماذا أو لقد لك الدين ووحا معركة الدين تا دتك هراء أي وهلاك سمين معنى هذا محيط هاي الجزاء من جزء العمل حدا أدنى الله تماده غلوه النوع عاسة دي وحوي أدنى وحكو قل عدونه إن أد هلاك سنتوي والعياذ بالله ولأجل هذا وحلو بهايه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في ريو سيدي والدين كان يدعوذان iyo maaragta u gaarsiin jiray dadka sidoo u sheegi jiray meelaha u baahan adeega in lagu adadkaado meelaha jirjiraaca u baahan in lagu jirjircanaado oo aysan diintu mar walbaba aysan noqonin diin dadka lagu kala ereeyo ama qofku isku dhibayo asagoo aan xaq ku socon isuna haysta inuu xaq ku socdo marka waxa loo baahan yahay in arimahaas oo dhan laga fiiriyo imaam ibn jawzi markuu fasirayay aayada qul ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum wuxuu yiri hadal baa ka soo arooray rahimahullah wa aslu dhalika wuxuu yiri anna khayra al-ashya ashyada waxa la sameeyo waxa u khayr badan awsatuha midkeeda dhexe oo aan xad gudubka ahayn yaa loo baahan yahay qofku inuu ku dhaqmo waxa weeye awsatuha yani qofka arin baa yimid arinka yimid inuu ka fiiriyo diinka ilaahay muxuu ka qaba rasuulka si muxuu ugu dhaqmi jiray see yeeli jiray maxaa la yiraahdaa markaana uu arintaas sidaas u qaato laakiin uu shay juz'iyaadka ama farciyaadka ah ama shay min fiqhi ah qofka intuu qabto inuusan dadka ku gaalaysiin kagana saarin xirada waxa loo baahan marka walaalayaalo tawassut baa loo baahan dhaxdhaxays وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحو كيري ساس بان وحان إذين يالي أمد دحدحاد معنى هذا وحوية دحدحيسته وحوال به خير كدحدحيسته وحلو بهن يهي سيدو كلا إن هدي اللي يري هلا دحدحيسته معنى هذا مع تفريط هلا سميو عكس كذا للي ماذا معه غلوغا لديدي يا إن لو حد قد بشيغا الرسول عليه الصلاة والسلام وأكدقي لكن عكس كذا معها إلا لي ماذا حدي إله كورو ياهي قابل آد الدرن أو دينتي إلهي أيضا لو حد قد بيو إفراد لو سمينيه تفريد لو سمينيه marka waxa loo baahan yahay in meel dhexe qofku uu joogo oo wasatiyadaas ilaahay uu quraankiisu ku amaanay rasuulkana uu dardaarmay culimada islaamkuna ay ka hadlayaan oo qofku dhaxdhaxaysto al-ghuluwi wat-taqsir kilayhima madmuuman labadoodaba waxa weeye waa wax la ceebeeyo way ku xad gudubka diinka lagu xad gudbo oo qofku isaga dhigdhigo in uu maaragta asaga yahay midka kaliya ah oo maaragta ugu saxsan oo maaragta dadka kale oo dhanna baadil ka dhiga waxa ka soo haray oo dhanna aan xaq u arkin waxa weeye kaawe kan xad gudubka keenaya oo madmuumka ah la ceebeeyay حديث بو رسولك عليه الصلاة والسلام محو كيري هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وحا هلاك سمي او هلاك سمي كو الدين اسكو عدد كينية اما امورها قاركود اسكو عدد كينية oo aan ka dhigaya waxaan ma aragtay sidaas aan loo suubin kayfiyadaas aan loo suubin xaalka uu sidaas noqon inay balaayo dhacayso oo ma aragtay halaagsamay qofkii oo ma aragtay xirada ka baxay oo uusan lahayn wax u dhooran uusan jirin maya rasuulku waa uu diiday arintaas imaam nawawi rahimahullah wuxuu yiri asagoo fasiraya xadiiskaas fi sharh al-muslim wuxuu yiri imaam malik imaam nawawi المتنطعون وحويه كوا متنطعين تأه أو اسكو أدكينية دينك
وكوا الغالون حد قد بياشا المجاوزون أو كبحية مارت الحدود حدود كبحية الغالون المجاوزون بالحدود حدود كبحية محي أقبحيان في أقوالهم هذا الكوضة وأفعالهم هي فعل كوضة أي حدود أقبحيان. طيب أذو دين برادنس يا أخي الكريم أذو دين برادنس دينك أرادنيسي ما وحو نقضي مركا دين أذو ما أردت هذه لها كورو يهي كل نباتية أما أدتك كل نباتيس مايا آيادان يا حديث كان هوري ويالي وقرنا وقرآنك يرسلنه هورا لوغو دقميي أذيك wax cusub oo hindisa keeni meys marka saa darteed waxa loo baahan yahay tanatuca in la iska ilaaliyo iyo ku xad gudubka diinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa macruuf ah oo soo arooray waa ogtiin xadiiskii dheera ee Anas uu wariyay ee Bukhari ku sugnaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam ثلاثة نفر صدح قلو inay u tagtay rasuulka guriyihiisa iyo xaasaskiisa ay u tagaan oo ayagoo raadinayo oo baxsinaya khayrka iyo rasuulku wuxuu qaban jiray kaleey salaatu wasalaam hadaba waxa dhacday macnaha in la raadiyo khayrka oo kayfiyad walba oo aad ku gaari karto aad raadiso صفات الرسول كان جري صفات أسومي جري سنن كيسي رادسو وشيء مطلوب هو لسكربه قفل بالله جبهين لأنه الدين كان أنت سو جارين إلهي نجوم الصحف ديان أو إلى أنت وقت كان حاضر ما أنا هاي سنين حدا نسال لو جود ذلك ولو بهين السنة إلا تحسسه ولا باره لكن تاس معناه هذا ماها قفك إنه يعني يذي وكتنكته يعني الشيء ومركو فهمه كدب ولي ماذا ماركتا وح أساق تي كدوان سيدا حديث كانوا شيء دونا حديث محونا شيء مركي الله شيء وح رسولك سمي سنجر عبادات كيسة مركي الله شيء كأنهم قالوها وحب مدابة إن يرستان أرنك وابا يرستان ويرستانو وحي هذين قد غفر له ما تقدم من ذنبه رسولك عليه الصلاة والسلام والله في ذنبه كيس هريه كيس ذنبه أنا غلمت منهن ويا رستان مركا مد بقى وحو يري طيب رسولك سيدو ساء السحدة وحالي يرهبينكي قيبو جيفتا قيبو كعا والله شيء مركا سيري أما أنا anigu fa usalli layla habeenkii waan taagnaan oo salaad baan u taagnaan abadan ma baseexanayo insaan weey wuu u baahay qistatu min ar-raaha ma dhici karto qofku inuu taagnaado habeenkii oo dhan wa tanattu weey wa xad gudub weey hada waa cibaado wuxuu raadinayay khayr laakiin wa xad gudub kii kale wuxuu yiri أما أنا أصوم الدهر أبدا ولغي واسومي أو أفوري مايو حد قذب أيضا مرلوات لأنه إلهي سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا أصلا قفك إنسان كالضعف بالغا أبوري مرق هذه كره يعني بلنقات كستو سميه مفولين كريو وهي هذا الشباب تاعي حوق leedahay oo aad taagnaan karto oo aad soomi karto laakiin bari waxa iman doonta maalin aad taagnaan karin aad soomi karin maalin walba wala ajir hada waxa loo baahan qofku in laga fiiriyo diinta taada sahlan in laga fiiriyo cibaadada rasuulka taasa sahlan cibaadada rasuulka kaleey salaatu wasalaam markii la weydiiyay qaabka soonka markii ugu dambeysay rasuulku wuxuu qariray oo sheegay إن صوم النبي الله داود وياه صومك ugu fadli badan oo ah in yoomna la soomo yoomna la afro waana ka weey qofka dadaalka badan ee doonay inuu khayrka korsado haduu sidaas sameeyo xadiis buu haystaa daliil buu haystaa ala qanaacatin wuxuu sameeynayaan oo ku sameeynaya
laakiin qofku inuu asaga iska abuurto oo la yimaado barnaamij asaga u gaar ah looma baahna ikhwatul a'azaa looma baahna waa in laga fiiriyaa منظورك كفيرنس وإنه نقضى منظور شرعي طيب كي سدحاد محير وأنا أعتزل النساء هوينك وأنك فوقانا يا بوير كي سدحاد وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا طيب حكمة ماها إنه سنقرسن أسقو لأجل عبادة وقف فوقاني هذا نمكا خير بيدوني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويه خير بين رادينين لكن هذا خير كأدور رادينية أي غلط كل عيسى غلط كأكون عدنا وحلو بهاي هاي إن أدفهنتو علدا إن تهاي إن وح الرسول كأوليم يا خير أوليم عليه الصلاة والسلام متكبدا هذا الإيمان كريم ولقى هذا واحد دون تصميس وحلقة جبهاي إن مركا حديثك قرآنك أتفيرسه معناها تاس أيانا دين تنبتا قفك وكوبت بهذه الدنيا آخرة طيب رسولك مركي أرنتي اللي سو قارسي عليه الصلاة والسلام بوقع الروضة أرنتاس وين الربتي وحول يري وراح عانا أما أنا فأخشى لله أنا إذن كو عبسي بدن إلهي سبحانه وتعالى أما والله بيري إني أخشى لله أخشاكم لله أنا إذن كو عبسي بدن بيري إلهي وأتقاكم أو كعبسده له لكني أصوم وسومية وأفطر وأنا أفرية وأصلي وتكنية وحوي وأرقد وصيحنية وأتزوج النساء هوين كان وأنقرسنية فمن رغب عن سنتي فليس مني قفكي سنة إذا إسكديدة إذا ما بميت أهاوي رسولك عليه الصلاة والسلام ولا لا حلو بهاي إن رسولك دينتك قضينا عليه الصلاة والسلام وحوي رسولك وحير عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي تكذا سيدا أركتان أنا أتكني وحلو بهاي وحوي مناسكت الرسول سيدو عليه الصلاة والسلام وجودن جري إنان فيرينو سيدو أسومي جري وحوي هبين هذا كم رسولك عليه الصلاة والسلام انتو صلاة الترويح ذا ودتك تجيي أيا دور هبين أيو مالنتي دم جورجيسي كن نقضي أو صوب حواي مركز أصحابتي السجين أيو خير كدونية الباب كي ودابتين مساجدك مساجدك جوديسي أيو السجي رسولك إنه صباح ما وصل صباحين رسولك وحوق عبصدي إن لجوك مرتا قره ومديسة صلاة داس أو مركا ميت كباقن كرائيس جيرين أو واجب كن نقطه وحوي أمدان أيو محركة آد وقلنا حريسن جري عبادات كذا وحا ودوني رسولك عليه الصلاة والسلام إن النقطه ميت دحاد أو مروى البابا دحادك كسعت وأوجدين قصدي معروف كاهيد حجك مركي ويري رسولك عليه الصلاة والسلام وحال إذن كربا إن سند والبحجسان إن تحجسان أيام مد صحابتك كم أيام وسوب وحيري يا رسول الله أفي كل عام مسند والبا رسولك إلهي حدو أرى لها ها وحي نقول له هذا واجب منع أين كبحنين مرك خيرك ولا جعليه لكن خيرك وحلا غفيرين يا midka aad awoodi karto oo aad sameyn karto oo aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka yahay oo sunnaha rasuulka ku sugan laqad kana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil aakhir uswa hasana waxa noogu jirtaa jidka rasuulka inaan raacno alayhi salatu wasalaam oo aan marka aakhire iyo aan ka fikirno mustaqbalka aysan qofka wax uusan awoodi karin uusan sameyn karin uusan awood u lahayn iyo xatoona inuu isku takallufo looma baahna uu diinka ilaahayna ka dhigo sidaas rasuulku wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam xadiis yassiru wala tu'assiru fududeeya oo ha adkeynina bashiru wala tunfiru bishaareeya oo maaragtaa ha kala eriyina dadka يعني انفرار dadka ha ku sameynina
وحوي وتطاوعوا ولا تختلفوا أضيع أو اسمقلا أو اسخلافنا marka waxa loo baahan yahay walaalayaal waanada rasuulka kaleey salaatu wasalaam arimaha ka hadlaysa inaan si fiican u fiirino waliba waqtigan xaadirka ah aan joogno waayahay maxaa igu kalifay hadaba mawduucan inaan soo qaadano ka hadalno mawduucan waa laga maarmaan culimo badan hore uga hadashay laakiin waxa asna ajiib ah waxa weeye maalinba maalinka ka dambeeso waxaad arkaysaa nooc kamid ah noociyadka ama form kamid formamka oo ku imaanayo tanadduca iyo guluwiga wa in la dagaalamo ikhwatul a'izaa in la dagaalamayo oo waliba dadka dhalinyarada ah iyo maaragta dadka odayaasha ah mid walba loo sheego looga sheekeeyo in rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka yiri mawduucan waxa weeye madaahir baa jirta keenaysa in laga hadlo mawduucan oo waliba saaxada hadda lagu arkayo oo guluwiga ah waxa kamid ah يعني waxa sahlanaatay التكفير بالجماعات والمسلمين dadka muslimiinta ah in la gaalaysiiyo oo dadkoo dhan la isku daro oo aan waxba loo kala reebin oo mawaanic iyo ta'wiilaad iyo wax loo dayo aysan jirin oo dhanniga aan maxmal wanaagsan lala aadin ikhwatul a'izaa arimaha waxay keensadeen ifsaadu diin in uu nin walbaba uu shaarka soo gashto ka hadlo diinka Ilaahay oo sidoo doono u dhigo asagoo marka ummadii yaani ku fasaadinaya runtii ummadatan uma baahna taxkiimaad iyo in la xukumo uma baahna ummadan dacwo u baahanta ummadan diin bay u baahanta ummadan waxay u baahantahay tacliim bay u baahanta ummadan wax la baro u baahanta ummadan uma baahna in wax laga faafiyo oo dadka dhaxdooda wax la dhigo oo walaalihii isjeclaa la kala qeybiyo oo ummadii Ilaahay iyo diinka u adeegaysay ayagu ay noqdaan ahzaab looma baahna ikhwatul a'izaa looma baahna han ka deeyno arin sidaas yaana dadka la xukumin oo laga saarin xadka wuxuu gaaray arinku ilaa xad qofka ku kufrinayo قال وكغا دغيو بمجرد انه يخالفه رايه الراي الشخص الاخر قفكاسي وحو خلافي فقط راي قفكا كلا او قبه ور حتى هذا الكلمه كتسنيس مدلول كيدو يahay in aad takfiir keensanaysa hada ku hadli lahayd waxbay ahaan lahayd mujarrad hadasho يعني على خلاف فكرتي ذو خلاف سيهي قفكاس هو محكوم عليه إما إعدام هذه الأول ذكره مالها قاركود وحكا دعية وإما تكفير إلا قالسي يا إخوة الأعزاء أرنتها واحد قذب ويدينك إلهي لو واحد قذب أنكوانتون ولا ليال إلهي أنو نقن adiga Ilaahay kuma uu soo dirin inaad dadka xukunto oo judge ka noqoto waana lagu weydiinayaa kelimada kufriga ah oo aad ridayso waxay ku dhacaysaa imma anta si rasuulka sheegay calayhi salaatu wasalaam wa imma li saahibika alladhi aad ka farsiisay oo gaalka ah ka dhigtay ay ku dhacaysaa ama adag kugu noqonaysaa labada arimood midood waxa weeye marka in Ilaahay aanu ga cabsano waxa afka yaga ka soo baxayo oo aan maragta dadku ku xukumeeno ko waxa yaalaha guluwiga waxa kamid ah dadka qaarkood ila ay gaareen in ay mamnuucaan dad muslimiin ah gadaashooda inaysan ku tukanin يعني inuu yahay qof maaragta asaasoo kale aan isku fikir ahayn laakiin masaajidkii Ilaahay waa qof ahlu sunnah wal jamaa ahlu sunnah wal jamaa feega kama hadleena anagu magac la baxo oo la sheegta kama hadleena waxaan ka hadleena ahlu sunnah wal jamaa waxa loo yaqaan dadka muslimiinta ah oo diinta wasatiyada haysta looma haysto dadkii loo yaqaan dariiqatu suufiyya lama yiraahdo ikhwati al-aizaa ahlu sunnah wal jamaa lama yiraahdo
arrinta ina cadaato wey waxa weeye hadii meediyaha lagu soo celceliyo kelimada ahlu sunna wal jamaa ama ikhwan muslimin dad khaas ah la aado maya waxa weeye ahlu sunnah wal jamaa waxa la yiraahdaa dadka muslimiinta oo diinta wasatiyada haysta طيب marka qof muslim oo ahlu sunna wal jamaa قداشيس كما تكنيو بمجرد أنه محل يرهدا وحو آمسيه كذا وكذا وآمسيه ما قرنسا الله ما بحنا إخواتي واحد قذب دينك إله اللي واحد قذب حد قذب كاسنا هذا أقول ما نطلع مايو وحوي قفك نفتي سكون قناي وأنا أرقني بصراحة وأرقني iyadoo qof kasto oo xadgudubka noocaas sameeyo ka qoomameeyo ama uu ka leexdo jidkii dariiqii wanaagsana ilaahay baan ka magan galnay inaan ka leexano qaarkood waxay yiraahdaan condition waxaan ku xireynaa shardi qofka aan ku daba tukanin waa inaan qofka aqeedada isku waafaqsanahay طيب rasuulka kaleey salaatu salaam imaamada markuu ka hadlayay waxaweye wuxuu ka sheekeeyay inuu imaan doono zaman fitanku ay badan doonaan oo loo baahan yahay qofku in uu ma aragta salaada uu la tukado imaamka hatta haduu jaa'ir yahay markaas Jaabir bin Abdullah iyo asxaabta qaar kamid ah weydiiyay rasuulka kaleey salaatu salaam waxay yiraahdeen hadaba hadii ninkaas salaadaha uu taakhiirinayo oo waqtigooda ku tukaneen maxaanu sameeynaa rasuulka ilaahay maxaan yeelnaa marka rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa weeye la tukada salaada asagoo taakhiirinay bal salaadii ilaahay oo la taakhiirinay oo waqtigeedii laga saarayo yaa waxa la leeyahay maya la tukada asagoo salaada taakhiirinayo salaadiina hore u tukada oo waqtigay soo gashay tukada waxa loo baahay ikhwaan diintii inaan dib u fiirino sunnada rasuulka aan dib u fiirino aan u milicsano oo aan dhadhansano waxa uu yahay sharcigu ma aha in aan hawadeyna ayna xukunto oo waxaan doonno aanu sameeyno oo mafhuumka aanu ka qaadanay kaliya aan wax ku xukunno may waxad gudub way arinkaas waxa jirta madaahirta yaan wali ku jirnaaye keenaysa muuqata in waayadan dambe soo kordhay ama aadku u badan oo zaa'idka ah waxa kamid ah al-unf wal khuruj ala al-imam in laga qofka uu la yimaado dariiqa mar walba uu wax ka diidan yahay oo ka biyo diidan yahay wuxuu la imaan maayo dariiqa ma aragta hadii la kira xal iyo ma aragta silmi ku dhamaanaysa may sideedaba qofka quluwiga sameeynay wuxuu la imaanay dariiqa cunfi ah oo doonayo inuu waxa kaga taqluso imma wa imma tiyo kala taala meeshan fikirkayga ma diiday ma qaadan weeday tayib wax kale noo yaal ma la dagaal baa noo yaal arinta kaliya oo noo dhaxaysa waa dagaal ikhwati al-aizaa ma aha sidaas al-unf la yuslih shay'a عنفي wax ma hagaajiyo عنفiga waxbuu haleeyaa rifqiga ayaa wax hagaajiya waxa way wajadilhum billati hi ahsan hadaad meesha xujaj haysato oo daliilkaaga uu yahay daliil waadix ah waxa loo baahan yahay in aad la timaado ala taawila niqaashto arinta oo aad soo bandhigto ma aha in aad adiga ma aragta hadii la ku rooyahay judgment-ka xaqeega haduu soo noqonin wax soconaya ma laha xukunka haduu soo dhankayga ahayn wax soconaya ma laha may xadiisku laguma yaqaano xaqa in dad lagu aqoonsado ama dad lagu raaco xaqa waxa lagu yaqaan inuu aslan xaqiya walaalayaal waxa loo baahan dadka muslimiinta inaan lagu xadgudbin dhiigoodana aan lagu banaysanin afkaar wareegayso oo aan asal iyo raad midna aan lahayn oo biri hada 2 sano ka hor afkaarta maanta jirta ma jirin birina afkaar kala imaan doonto maxaa yeelay ma diinteena waxaan ka dhiganaa afkaar iyo ra'yi isbedbedelay
mise diinkeena waxaan ka dhiganaa diin saxiix ah oo ilaahay aan ku caabudeyno oo maaragtaa aasaas iyo maaragtaa thawaabit leh waxa loo baahay ikhwaani inaan ilaahay u toobad keenno waxyaalaha dadka waxaas ku dhaqmayana ay ka waantoobaan marka quluwiga aan ka fogaano waliba khaasatan shabaabka quluwiga dadka dhalinyarada ah ee da'yarta ah oo aan cilmiga ku filan lahayn ilaahay uga cabsadaan ficilka ay sameynayaan طيب quluwigaas wuxuu keenay ikhwaani oo ma aragtay xadgudubkaas uu keenay in dadka acraadooda la banaysto in dadka dimaadooda la daadiyo oo lagu xadgudbo ilaa uu shakhsigu uu gaaray xaduma inuu wuxuu doonan uu takfiiriyo wuxuu doonana uu maaragtay asaga ka dhigo dad ahlu firqatu naajiya oo badbaadaysa firqadii rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasuu intuu wasaa'ilka iclaamku yiraahdo jamaaca hebel waa gaalowday shakhsi hebel waa gaaloobay waxaad mudakaarka bixi oo qaybi in la yiri wax kala ka shaqeyn adigu wax un maaragtay hadii ilaahay ku rooyo gaalaysi inuu yahay diinka iyo dacwada oo loo soo diray intaasoo balaayiin oo dad oo u baahan dacwo inuusan ka hadlin kana fakirin qaabkii loo gaarsiin lahaa ikhwaani waxa weeye dadka qaarkood waxay sheeganayaan inay yihiin dadka ugu saxsan inay yihiin calaa fahmihi fi nusuus nusuusta qaabka u fahmay asaga inuu dadkaasi u yahay firqadii saxiixa ahayd ee naajiyada ahayd inuu yahay waxaa loo baahan yahay walaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa waxbaha istaskiyeen taskiyada ilaahay baa bixiya waxaa loo baahan yahay diinka inaad ku dhaqanto ilaahayna u dhawaato caabuddo dacwadanan aad ka qayb qaadato dadka muslimiinta ana dhibka laga daayo waxaa arkaysaa oo madaahirta ka mid ah dadka quluwiga la yimaada ay ku dhaqmaan inta badan farciyaadka ashyaada farciyaadka ah ayay in badan ay ku xiiqaan oo ku doodaan oo waqti badan kaga luma markaas wuxuu keenaa inay dadka xukumaan ay ku xukumaan calaa niqaash dhexmaray oo fahamka ku saabsan kayfiyadu asaga wax u fahmay markaasay imaa wuxuu ka dhigayaa inuu qofkaasi uu noqdo qof xaraam ku dhacay ama qof waajib galay oo waajib gutay labada qodob hadduu soo dhicin ma laha wax kale oo dhexdhexaad ah ma laha waxyaalo oo maaragtay hadii la ku reeyo karaaha ah ma laha waxyaalo oo nahyi ah ma laha waxyaalo oo mustaxabaad ah oo maaragtay mubaax ah ma ka hadlayo laba sharci baa u yaala ninka oo maaragtay quluwiga dhaqanka ka dhigtay imma inuu gaal ka dhigo ama uu ku yiraahdo xaraam ba ku dhacay imma inuu waajiba ku dhacday allah hebel waa fiicay waajib ku dhacay malaha sunno malaha yani qaabab kale oo taxkiimaad ah malaha maadaama uu asagoo dhanba howshiisu ay tahay quluwi ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimo badan ayuu kaga hadlay in loo baahan yahay yani meelo badan buu alla kaga hadlay in loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu diinkiisa ilaashado diinku waa waxa ugu habboon ugu weyn oo qofku inuu ilaashado loo baahan yahay ikhwaani waxaa jirta asbaab keenaysa qofka inuu quluwi sameeyo waxaan tirinayaa asbaabta keenaysa qofka inuu quluwi sameeyo in sha allah waxaan ka gaarana waa sharxi doonaa aslan waxaa asal u ah qilatu fahmi الdiin in la fahmay diintan inuu qofka fahmay ayaaba horta asal u ah hadduusan fahmin waxa weeye qofkaasi
oo cilmi badan lahayn waxa keenaya inuu maaragtaa ku dhaco hadii ilaahay ku reeyo sheegaas quluwiga salaada xabadka miya gacmaha la saaraa mise waa la raaciyaayo saasa loo istaagaa waa masaa'il ulama ay isku khilaafeen waana masaa'il yani kamid ah hay'ada qaabka loo istaagay arkaanti ma waxa fiican qofku marka ma fahamsanaba salaadi waxa uu ka hadlaya mawduucan xadka uu leeyahay meesha uu gelinayo category uu gelinayo maanta dhan uu ku xiiqaya markii diintii in la barto oo qillatul fahm kaas laga fogaado iyo qillatul tafaqquh laga fogaado ko labo waxa kamid ah asbaabta keenaysa qofkii oo isdaaraad sameeya asagoo cilmigiisii uusan dhameystirnayn saan soo sheegnay iyo wuxuu soo saaray fataawa wuxuu ka hadlayaa waxbuu xukumayaa waxbuu sheegayaa markaas wuxuu ku weydiinayaa xaraam is xalaal u fiirsaday qofka markuu diinka ku cusub yahay ma ku weydiinayo maalin dhaw nin baa su'aal weydiiyay wuxuu ugu yiri sheekh arintaas soo xaraam ah insaan la yeelo akhi ha ka bilaabin baan ku yiri xaraamiya arinta diintu maxay ka qabtaa weydii arinka diinku muxuu ka qabaa marka kadib ha lagu sharxo wuxuu yahay xalaal iyo xaraam ha laga hadlo laakiin ha ka bilaabin xaraamiya kelmadda kaaga ugu soo horeysa afka ka soo baxdo haday noqoto xaraamiya dadeen waxa iimaanaysa xalaal weeye iyo xaraam way cagsigeeda bas wax kale oo iimaanaya ma jirto mana aha sidaas weyga ama dariiqa طيب dad badan waxa ku kalifaya ama asbaabta keenaysa inay quluwiga la yimaado waxa kamid ah asbaab معرفة النصوص نصوصتي بيسن aqoonin سبب نزوله نها نصوص taasi sida u soo degtay naasixeeda iyo mansuuxeeda sida ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maaragtaa oo naasixay ama mansuuq uga dhigay muhkamkeeda iyo mutashaabiheeda ma yaqaan طيب qar kamida dadka waxa lagu qafilaya lagu program gareynaya in ay dad qaas ah wax ka dhigeystaan bas aan laga dhigeysanin dadka kale markaas muxuu keenayaa qofkaasi in uu noqdo qof meel ku xiran taqliid a'ma wuxuu ka raacayaa ninkaas wuxuu yiraahdo yaqay insaan kasta ومعصوم معها يخطأ ويصيب وأصيب يا وأقفيا معها مركا قف كاسي إنا ميل أو حرنات حرة وهو يدا وحي كل شيء حرة حر إلى النقطة ودينك إلى حر أو نقطة أو قف والبابا أود ولا يده إنا كقاعدا كرت علمي حديثك أبي هريرة واتقرانيسان إخوة الأعزاء مركي رسولك عليه الصلاة والسلام نكي او يمد شيطانك او بني ادم iska soo dhigo rasuulku u iimaan jiray oo habeenkii hore u qabtay sidan mar labaad u qabtay mar ma doonayo xadiiskiina si details galo aan si sharxo waad garanaysaan xadiiska insha Allah yaani maxaa soo haray markii ugu dambeysay shaytaanku wuxuu weydiiyay Abi Hurayra inuu akhriyo oo baro shay oo mar dambe uusan ku arki deenin markaasuu baray aayatul kursiga shaydaan buu ka bartay aayatul kursiga in la isku xijaabo Abi Hurayra shaydaan buu ka bartay ibliis markuu rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam u sheegayna wuxuu yiri laqad sadaqaka wa huwa kadhub rumbu ku sheegay asokada al hikmatu dalatul mu'min hikmadu sideedaba qofka mu'minka daaladiisa way yaakhudha ayna yajidaha waana qaadanaya meeshu ka helo marka walaal waxa loo baahan yahay inaan sidaa u fiirin arinka oo saa u dhigno oo inaan u dhigin arinka in qofka uu qof ku xirnaado war adigu maxaa lagu xiran diinka loo fahmo
ka mid ah ittibaac الهوى. إخوة الأعزاء dad badan waxa ay qaadanayaan madaahirul adilla daliilka sida uu egyahay ama u muuqdo marka kadibna wuxuu ku fasirayaa hawadiisa sida ay jeceshay taasuna diinkaaga dhigaya adigu taasu diinkaaga dhigaya hawadiisu ku fasirayaa naski marka taana diin ma noqon karto ee waxa loo baahan yahay in aan ilaahay uga toobad keenno arimaha noocaas rasuulkana calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku yiri thalath muhlikaat wa thalath munjiyat saddex waxay ka mid yihiin wax halaaga saddexna waxay ka mid yihiin wax ma aragtaa badbaadiya thalath muhlikaat waxa weeye shuh mutaa wa baqaylnimo la adeeco wa hawa muttabi iyo hawa la raaco iyo wa i'jaabul mar'i iyo qofka oo isku cajibiya برأيه رأيي اسكو عجبي تعجب وحيالا وحلاقي كمدي كو عليه الصلاة والسلام وحيري ثلاث مهلكات وثلاث منجيات سدح ماركته وحلاقته سدح نوى سدح ماركته وحبت بعد السه وحكم ذا شح مطاع وحويه بقيلنا ما لا أضيعه إيوه هوى متبع إيه هوى لا راعه qofka hawadiisu iska raaco oo asaga xukun ku gaaro iyo maxaa la yiraahdaa i'jaabul mar'i qofka oo isku cajabiya ikhwatul aizaa arinta aad bay u badanta i'jaabul mar'i bi nafsihi naftiisu oo aad u cajabiyo oo isugu cajibo waxyaalaha muhlakaadka keena ay kamid ثلاث منجيات بي رسولك عليه الصلاه والسلام صدح وحبد بادسه خشيه الله في السر وعلانيه صدح waxa weeye ilaahay in laga cabsado oo laga dhowrsado si maarta sir ah iyo si muuqataba iyo in maarta qasdi la yimaado fil ghina wal faqr ghinaha marka lagu jiro xaalatul ghina iyo faqr marka lagu jiro in la dhaxaysto oo israafka la imaan iyo wal adl waxa weeye in adl la yimaado fi rida wal ghadab wa adagtahay ghadabka in cadaalad uu qofka sameeyo لكن رسولك وحو يري ووحي وحبت باديوي مرك إخوة الأعزاء هلا إلى لي حدود إله وددك يا لو واحد قدبن او علماء الإسلام كإيمان والبلد جائفين أيو او الحكومة يا هلا جوجي إخوة الأعزاء تلك حدود الله فلا تعتدوها حكمنا او هكو حد قدبنا حدود إلهي لغاي وحوي أديك اللقو ما صادرن أمدان إنا حكمته oo aad diinkooda ku xukunto oo aqeedadooda aad ku xukunto rasuulka kaleey salaatu salaam xadiis wuxuu ku yiri yaxmilu hada al-ilm ilmigan waxa xambaara min kulli khalfin adulahu mid walba oo dadka gadaal ka yimid dadkooda cadaalad badan marka maxay reebayaan yanfuuna waxay reebayaan anhu tahriiful jaahiliin الجاهلين وحيالها أي ماركة تأويل الجاهلين ده تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وحوي تحريفات كدتك غالين تأسميان حد قد بياشا إيوه يعني إني وحول ببدلان سيأيقوا الرأي قود الربان أوليقان إيوه انتحال المبطلين كوا ماركتا baadilka ku dhaqmayo mar walba siday wax maaragtaa ilaahay ku rooyahay baadilkooda u dhaxgelinayaan iyo wa ta'wiilul jaahiliin maxaa marka badbaado noqon karo al manhaj al wasati manhajka wasatiga oo dhaxdhaxaadka manhajkaas weeye manhajka badbaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ka sheekeynay wax walba in la dhaxdhaxaystana waxa kamid ahayd tusaalooyinka Allah uu quraanka ku sheegay ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وحوي إلهي وحيري يداada ha ka dhigin mid xirxiran oo qoortaada ku xirxiran dhuuntaada ku xirxiran ha ka dhigin mid iska furan oo wax walba ay baxaan wax dhaxdhaxaad baa loo baahay
يا أيها النبي يا محي أهيد آيات القرآن إلهي سبحانه وتعالى كيري يا بني آدم وحاوي خذوا زينتكم عند كل مسجد قاتا waxaad isku qurxin lahaydeen meel walba aad maaragtaa wakulu washrabu wala tusrifu israaf lama ogola xad gudub lama ogola wax walba waa waxay ku baahaboon tahay manhajkaas wasadka ah inuu ka turjumo ilaahi subhanahu wa ta'ala nas'al Allahu al-aliyyul qadir ilaahi sareey waxaan weydiisanaynaa an yahfadna jami'an ilaahi inuu naga xifdiyo ويهدينا إلى صراط المستقيم إنه نجهنونيه طريقة توصل إنه نجهنوني إلهي سبحانه وتعالى ولا ليال وحكى له أيضا عكس الغلو وحوي قفك تفريط سمية قابن سمية لو ما بهنا شرعي إلهي أنتو يهي إن لقى قابيه سان صور شيء منهجك الصحيحة أنا ومنهجك وسطك وحوي مركا يا أيها الناس رسولك وحير عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس عليكم من الأعمال وحدشين إذن صارا ما تطيقونه وحد أو ذكرتان فإن الله لا يمل مداله حتى تمل إلى أداشان وإن أحب الأعمال عند الله إلهي وحا أقول جعليه عمل السمايه ما داوم عليه كل دائمه وإن قل هبيراده انت سان دردارنكي كسو غبغبينيا إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجيو كلمه aan niri إلهي سبحانه وتعالى ميزانكينا حسناتك ha ku daro waxaan wixii qaldan oo ku hadalnayna shaytaan bay ka ahaatay iyo naf wixii aan toosinayna Ilaahay baan weydiisanaynaa inuu noo badiyo oo darajaatul xasanaat uu noogu biiriyo هذا وبالله التوفيق والله أعلم.